iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maleeshiyaadka argixisada Al-shabaab waxay tiro Hoobiyaal ku soo tuureen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Hoobiyaasha ayaa ku dhacay Dugsi Quraanka Kariimka lagu barto oo halka ku yaala, waxaana ku dhaawacmay 14 caruur ah iyo macallinkii Quraanka Kariimka barayay. Caruurtan oo ah kuwa aad u yar isla markaana qaarkood ay Soomaaliyeed ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa durba gurmad degdega u fidiyay, kadibna waxay u soo qaadeen magaalada Muqdisho. Isbitaalka xoogga dalka oo lagu dabiibayo ayaan ku booqanay si aan ummadda Soomaaliyeed ugu soo bandhigno arxandarrada maleeshiyaadka Al-shabaab. Waxaa halkaa ku soo aragnay caruur aad u yar oo aan qaan gaarin isla markaana dhaawacyo kala duwan oo qaarkood ay culus yihiin ay ka soo gaareen Hoobiyaal ay Al-shabaab ku soo tuureen degmada Awdheegle isla markaana ku dhacay dugsigii Quraanka Kariimka ay ku baranayeen. Macallinkii Quraanka Kariimka barayay oo dhaawac ah ayaa nooga waramay sida ay waxyeelada ugu soo gaartay Hoobiyaashaasi. Subaxdan waxa ka jirnay dugsiga noo ka jirna markii ku waxa dhiyay gandaal ba soo dhiyay gandaalkii soo dhiyay banaanka soo banay anoo ilmo ilbaabka soo shal furaw maalin kale dugsigiis hortay ahay ilmiyamti soo dayni iyo haddana ilmihiina oo day qaar ku mid ah dambooyaan waxa meel haddana gandaalka hortay soo dhiyay ilmaha qaar kaas dhaawac ka dhigay ilmo badan ba walka deeri meelasay an saas goob joogan ka hortay ilmo badan ka dhiyeen an saasay meelasay oo gandaalkii oo lamaad oo la soo ridi kaas ba saasay nin galay dhaawacyadaasay badan kaasaan yiriday dugsiga ilbaabjeen ka soo dhiyay degmada Awdheegle. tirada guud hadda wixii hadan roogno waa ilmo oo tuman iyo meelahaas way hadda wixii yar hadii loo hadadki kala weyn hadda 4 qof kaan tuman iyo 4 qof way tirada ahaan damashada wixii hadda beledka oo hadii xaaladan saasnaatay oo ba daawiyo walni la rooray wixii kala beledka in walbadan ba iska jira dhaawacooyin badan la tilmaamay laakiin un hadda mugo wixii hadda xaadir ahaantan ku roogno intaan baahan laakiin dad badan oo dambooyin oo xaaladaas hadii aan xaalka saasnaadeen guriga baseeday markaasay aadaniman walaalay soo qaadeen waxaan jeehrada ciidankiina meeliya waxaan weelan in irbidiya oo la joojin iyo dhiig joojin baadijeen waxaan soo saareen baawur iyo in khaase baadijeen waxaan soo wareeray oo linsii wareejiyay baawur hoomeen soo wareejiyay sidii oo isbitaalkan hadan dawlad leen niisheenay. maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa isku dayay tiro dhowr jeer ah inay soo weeraraan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay kala kulmeen jab aad u xoogan, taasi oo keentay inay isku dayaan inay ka argoostaan shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba ka galabsan, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u taagan difaaca dalka, dadka, diinta iyo u gargaaridda shacabkooda xilliga ay garabka kaga baahan yihiin ayaa gurmad degdeg ah durba la gaaray caruurtaasi ay waxyeelada soo gaartay.